nabad sii soconaysa haddii kale ma jiro khaatumo iyo somaliland war yar baan idin siinayaa adduun weynuhu waa u soo jeestay soomaaliya shirkaa londonna waa maqlayseen adduun weynuhu midda uu u soo jeedaa waxa weeye wada hadallada soomaaliyaanu nabaddaanu wax ka qabanaynaa dowladda federaalka aanu gacan siinaynaa laakiin meesha loo socdaa waxa weeye soomaaliya nabad waxay ka dhici kartaa in la helo dhibaatada waqooyiga iyo kala go'aas si lagu daweeyo hore wada hadallaa u jiray oo somaliland iyo xamar wada hadallo ay u socotay arrinta hadda loo socdaa waxa weeye waqooyi iyo koonfur in loo wada hadlo waqooyi iyo koonfur in loo wada hadlo warba ninkii taa ka fiican hayo ciddii tala ka fiican hayo maandhow waa kuu ducaynaynaaye kaan innagaa tala maanta u baahan taladaynu u baahannahay waxa weeye war adduun weynihii baa sidaa raba war innaka oo keligeena meel isma taagi karno xamarna waxba kama nihin somalilandna kama nihin puntlandna warkeeda badaa warka ugu dambeeyey ka yimi puntland haddaydan maqal xildhibaanadii baa la kordhinayaa mudug iyo bari tiradii 66 ahayd yaa la korinayaa waxaa la dhaliilayaa hadda cidina inooma sheegayso 17 baa la yidhi waa ku badan yihiin dadka waxaa la badinayaa oo 80 ama 90 laga dhigi doona baarlamaanka puntland waa go'aanay gaadheen miyaa laynagala tashaday war kuwa puntland u sabcinayo leh harti baanu nahay dantayaday hayaanow dee istaaga oo la dooda oo bal halaydan qanciyo annaka horaan uga qancanaye bal kuwiina leh war iyadoo aynu saa u soo joogno war nin baa ku dhaawaca intuu ku dhaawaco weliba cay kugu daraa kugu yeesaa intuu ku dhaawaco oo amlay kaala daalo yidhaaha eeygu dhalay inuu gumeedka ah hadda dhaawaca waxaa kaaga daran cayda warray wixii laynagu sameeyaa puntland war wixii wax ka keenaya in badan baa waxaan idhi war ciidanka halka jooga iyo niman meelahan mushahar ka qaata waxa ay inoo hayaan raashinka ciidanka yar la siinaya Soomaa war annaka uga badinayna war waa ula tagnay war waxaynu nasabnimo iyo taariikhdeena iyo masiirkeena waxaan hayna kala hadlimayna war ninkii laakiin ka keenaya wax wanaaga oo xitaa aynu fadhiisano